marka gabadhu baa guriga joogto inantii saan u wada sheekaysan in arrimaha ka wada hadlaynay iyo danahaygi ayaa albaabkii la soo garaac daaqadii albaabkii weydin daaqadii albaabkii nagu xidhay ninkii ugu waxa guriga ku keenay waxaan ku inta wada sheekaysanay wax dhibana ma na wadin hadda xmaan wadi lahayna guriga ma na wada nimaadnay afraadii anigoo 3 casho walaah baa ka soo kacay anigoo ma socodka ugu dirqiyahay baasudko lacag ma hayso moolkayga waa 00 waa berbera cid wax ku dhigaysa ma jirto waa qadi lacagta halkaanu intii ka sugeynay aan sheekadii asnaa intii baa idin soo socota ayaa meeshii anagoo ay ugu yaraan 12 tahay waxa naga soo baxay nin bursita inanta xaafadeedii laftirkeeda xalay ka kaxeeyay aan xalay kala baxsaday sagaalkii habeenimo ayaan ku soo celiyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dawadayaal ku soo dhawaada Munasaqada Media ama Basaqada Media baraha bulshada ciwaanada aan ku leenahay oo dhan isu soo noqod wanaagsan bariyahan way yara kala baahnay sheekooyinka nooga barateen jacaylka lahaa ee murugta lahaa ee warwarka lahaa intaba ayaynu caawa halkan qaar kamid ah kula wadaagi doona waxna la jooga wiil dhalinyar oo magaciisa leedo Naasir Cali Xaashi Naasir oo ku soo dhaweynaya ku soo dhawo channelkay wadooha wala adiga Munasaqada dhamahan oo soo dhaweynaya aad iyo aad oo salaamay way Naasir de waxa weeyaan dadku markay saa ku eega sheekh ba ku maleynay waxa sheekh yar caaw wareysanaysa talo madhankii su'aalaha diiniga ay weydiinaysaa wala saaranaya laakiin qof kastaaba qiso leeyahay qof kastaaba qiso ayaa ku dhacdo noloshiisa u qarsoon waxaad jeclaysatay markaas qisooyinkaaga mid kamid ah nala wadaagto waliba qaybtii jacaylka bal qisadaas sidee kuugu dhacday runta horta dadku waxa oranayaan sheekhani muxuu idin leeyahay ma taqoolahay idin leeyahay laakiin marka xaga jacaylka loo baro waxa laga yaabaa in dadku u yaqaanin ba inaanu sheekha jacaylba ku dhacay saas u maleeyaan marka sheekadeena waxay ku saabsan tahay sheeko dheer oo qiso weeye jacayl ah qof kastaaba meel uu nolosha ka soo bilaabay ayuu leeyahay marka aniga markii hore waxaan ka soo bilaabay noloshayda baadiye reer miyi marka qisadani miyayga iga dhacday waxaan anigoo reer miyi oo tuulo miyigeeda degan ayaa waxaan jeclaanay inaan tuulada laftirkeeda degan isku tuulatii ahaayo anigu marka tuulada miyigeeda ayaan degan baadiyaha ka soo shirtaga xoolihi aadhi adigu waxa tay miyigiisa reer miyiga caadiga ah marka inantana laakiin tuulada ay degan tahay waa hablaha magaalada marka la oranay tuulada la oran karo waa kuwa muunada dheer weeyaan marka miskiinkayga reer miyiga ayaa inta jeclaaday inantana oday waa dhalay sheekh oo magaalada jooga wuxuu la jecel yahay inuu sheekhu siiyo 10 hore ka haysto oo ka soo reeba marka wuxuu leeyahay sheekhu mooyo cod kale uma ogola marka inantii ayaan jeclaanay inantii sheekh ayaana dhex martay muddo ayaan wada sheekaysanay inantii markaan wada sheekaysanay habeenkii dambe ayaan waxaan ka codsaday anigu inaan kulano inantaan saragno maadaama tuulada aan la is arki karin maalin la is arki karin oo de la oranay hebel iyo hebel baa sheekayso dabeetana intii magaaladii ayaan ka wada hadalno waxaan xilli ma ayaan isku nimaadnaa waqti ayaan baahanahay saragno habeenkii dambe igu tiri waa saxe guri xaafadooda ayaan isugu imanaynaa guriga ayaan isugu niminantii markii aan intaan guriga soo gaarin yar ka hor ayaa wax soo daatay roob baa soo daatay dabeetana albaabkii markaan soo galay albaabka xidhay maadaama roob daadanayay qolkii fadhiga iska fadhiisanay gabadha anagoo fadhina oo daaqadii roob ka soo daadanay daaqadina hor xidhin qolkii anagoo iska wada fadhino ku sheekaysanayna ayaa waxa dhacday gurigan aan wada joogno waxa la inanta in adeerka rumaale marka gabadhu baa guriga joogto inantii saan u wada sheekaysan in arrimaha ka wada hadlaynay iyo danahaygi ayaa albaabkii la soo garaac daaqadii albaabkii weydin daaqadii albaabkii nagu xidhay dabeetana inantii baa kacday dabeetana intaana horta kicin albaabkii markii la soo garaacay kama fureen moolka lagu soo dhufta moolkii markii ka qabatay tina waa heble soo bax inantii baa u yeedhay markaa dibadda ugu tagtay dabeetana inantii waxay markii dibadda ka kacdo waxay tagtay ninkii reerka lahaa ee gurigii jooga oo la dadkii meesha iskula jira qoralkii xidhay daaqadaha xidhay waa maxay dabeetana waxay dhahay waa heblii hebel oo ku wada sheekaysanaya ninkuna yar mushaki buu ahaa wuxuu yiri budintu si taagi albaabkii ayuu yiri ugu yeer ninka soo saaran anigii qolkii dushii baa laga sii xiran waan sheekaysan waxa say inantu mulwo jalba wadayo bada cad lagu ballamay cabsi waa ku jirtay marka talo maxaa ku dhacay baan sidahay dabeetana inantii markay igu soo noqotay waxay igu tiri ninkii baa jooga guriga yiri xanaaqsan wuxuu yiri ninka igu yeera dabeetana marka aniga tala igu cadaatay
meel kan ka baxo male waa albaabkan ka baxay ninkii bur weyn buu la hor fadhiyaa marka waxa noqoto waxaan siruun adigi miyuu ku haystaa waan ku hore mayba igu taxay leeyahay ninka ilo yeelo ninkaas u nimaad dabeetana adu iska baxo waan ku hore inantii markay baxday baa anagu soo xigay dabeetana ninkii ugu waxa guriga ku keenay waxaan ku inta wada sheekaysanay wax dhibana ma na wadin haddaan xumaan wadi lahayna guriga ma na wada nimaadnay taasi ahayd ninkii saasan ku wada tagnay inantii sidii ayaan u wada sheekaysanay aan wada soconay xiriirkaygu mar walba si siyaaday ka bacdi maalinkii dambe ayaan sidii inantii aska haysataan oo aan ku heshiinay goor ah inaan ka haysano oo isla tagno dhaqan ba miyiga ka jira dhaqanku in la isla xaso la isla baxsado dhaqanka laakiin soo doonista wuxuu ku badan yahay magaalooyinka oo dhaqanka inta badan waxa miyiga ceeb baa looga yaqaanaa mado inay rabaad inaka gabadh soo doonaysaa wali mooday baa tahay dadka haysatid dadka haysatid inantii waan dabatana aan heshiinay inaan iska haysano habeenkii dambe aan ku heshiinay aan intii ka haysano oo inantana si gaar ah loo ilaaliyo oday sheekha baa dhalay odaygaasna ma ogola nin sheekha mooyaane in cid kala siiyo hablihiisa dhan sheekhin buu ku wada taxay inantan ilaa 3 xoro nin baa laga soo reebo marka habeenkii inantii waana la ogaaday in arrin naga dhaxeeyo markaa si gaar ah baa inantii ilaala gaar ah la siiyay maanta si gaar ah loo ilaaliyay ka bacdi waxa dhacday inantii habeenkii tan heshiina aanu caawas ka haysano ayaa mid magaalada maadaama miyiga ka yimaado magaalada aan isku faamilnahay ayaan ku riniyo inantaasaan doonayaa inaan caawa iska haysano arikaas noo dhan marka inaad igala hawl gashid ayaan rabaa soo ninkan aan arka u sheegaya deesaan oo qaanay ma aha laakiin wax dambaa iga soo bixi doona hees baa oran jirtay biika qaado ruuxaad galab sabatan hal moodin gacalka soo ninkan barasho badan isku madihin ka bacdi ninkii iga tagay wuxuu yiri waa saxe waan kula hawlgelaya ninkii intuu iga tagay ayuu ninta aabaheedu tagay dadka waxa ku yiri arrin baan ku hayaa arrinka haddaan kuu sheego maxaad siinaysaa waa adiga ku danay adigu yaabada arrinkaas muxuu yahay arrinkaas wallahi haddaan arrinka kuu sheego waa arrin ku gaar xaafadaada ku socdo adigu khaayo adeer wax walba oo diyaar baan ahay ii sheeg maxaad siinaysaa si ku yiri waxaan ku qaadaya qaadka dabeetana waa sax adeer ii sheeg buu iga qaado wuxuu yiri inantaadii hebel iyo hebel baa doonayna ka xaysan geedkan ay ku jiraan wiidin fashay ka bacdi waxa dhacday halkii aanu inantii ka sugeynay aan sheekadii asnaa inantii baa idin soo socota ayaa meeshii anagoo ay ugu yaraan 12 tahay baa naga soo baxay nin bursita daba warkaan aragnay inuu odagi yahay baanu meesha ka yaacnay moogta qof nin walba tooskii soo carro sidii aanu intii wada soconay aan intaasana xanaga xumeyn baan anu ka soo tagay miyiga ka yimi waxaan imi magaalada berberaan miyiga waskay iska xamaalin jooga iska joogi marka maalmaha kamid anigoo dukaan ka shaqeynayo aan noloshada kala soo baxo aan ka shaqeeyaba waxa dhacday inantii si aan u wada sheekaysanayna ba dukaanka habeenkii lagaga tagaan seexda dukaankii habeenkii anigoo hurdaba oo sidii dukaanka seexdo ininku iga tago rabo waxaan dukaan ka shaqeeyo baan si aan dukaanka ugu shaqeynay intii uu wada hadlayna صح تلفون بك تلفون ما كودا هذا الله هبينك مركا ماشي تجني ونكلا روحة أنا صار ماشي وصاحي وصيحنا يا أنا ما بس حابب كده إن أنت تلفون كان كله الله هبينك دور عشاء واحد على دكان كنا أنا كعين بو الباب اللي فهمت هذيك أنا النساء من اللي أنا هاي ونكي مهرد الله هيجي أنا جو ماشي هرده ضد كأديك أنا ضمر كودا جراعيا الباك وجراعيا دور عشاء موقت أركز في قرعة waxaa dhacdaa anigoo meherada ka shaqeynaya saan intuu wada hadlaynay qofka jacaylku qabo markuu dhabka ka yahay waxa laga yaabaa inuu meel kale ku maqan yahay jismigiisa uu joogo laakiin ruuxiisa meel kale ku maqan tahay baa waxa dhacday xilliyada qaarkood anigoo adeeg iibinayo dadka ka iibinayo baa waxa dhacday wax 20,000 ahaa inaan u dhiibaan 3,000 aan ka qaado iyadoo la adeega baradhay miisaan basal u dhiibay kabacdi maalinkii dambe waxa dhacday meheradina ninkii isfahmayno iyo anoo arrinkan sidan anoo ku tagaya adna danku ma iskaga tag waxa dhacday inaan magaalada ka xamaalan jiray anigoo magaalada ka xamaashay habeenada kamida ayaa meherada fadhiiso ku qayla dadku waxa dhahan dadka qaarna waxa dhahan bulwada ninkaas waa xaalad qayl waa xaalad qayl inantiina lambarkeedii ayaamahan meeshii ka tagay baa inantii lambarkeedu xidhay dib dambe waan waay muddo 3 bilooda anigoo inantii lambarkeedii la oo yaabano sida waxa ku dhacay cid aan dhaho meeshii tagna aan garanaynin
baa waxa dhacay habeenkii dambaan mahada fadhiisan qayla hay cawa arrin midoo kan baan idhi hay meherada anigoo fadhiya ha ayaa Facebook iyo soo in dhaweyd bagelin ayaa arkay qoraal ku taagan taan khadka ku shubtay hay qoraalka ku taagan waxa weeye hees qamarsuga hana qaado hay heesta waxa kamid ahaa aamintan isbarnaa xasuusa sidii eriyada raxmaan eriga tahay dhigeystay uurkan kugu qoray bogayga dhammaan ilaha jirkayga ku siiya nafta ilaasho ayaa kamid ah heesta oo hees la oran karo waxba abwaankaasi kama tagin hay marka waxa dhacday inaan saaro sameecadii meesha taalena heestii aan hees waa lagu soo qoray waa la soo qoray Facebook laga soo qoray xasuus waay. meel aan markaa kaga celiyo Ha, ma hayo waay. horta waa ka caafadhiisay dhidooyin baa iga yimid Waay. marna dawladda aan u kacaa Waa 3 bilood ka bacdi. waa 3 bilood ka bacdi waay Facebook iga soo cusubtay Facebook iyadoo leedahay maaha waa mid kale qof kale ayaa ku qoran qoraal baan u qoray Facebook ma fadhido heesi waxa dhacday hees inaad oo dhageysatay sameecadii meesha taalo oo rag badan ku qayilayaan fadhiyaan ayaan heestii ku shidan hay ugu yaraan markay heesu dhamaataba waan ku soo celiyaa waay 5 jeer markaa heestii ku soo celiyo dadka yaabanta sameecadda bay ka qaadan bay dhahan wala waxa ka xun Waalay. waalaya qofkan naga qaadina dadku isku wada dareen ma aha waay ka bacdi waxa dhacday inaan talaygo cadaatay habeenka waan iska tegay ugu yaraan labadii habeenimo anigoo arrin aan ahayn baan iska tegay waxaan seexan jiray meel yar oo xamaaliintu seexato gidaara baan seexan jiray waay oo buulal yar baa ka dhisan hay markaa buulashii yareed mid yaroo ka mida ayaan hoos kala waay waa geed saa u soo weyn laakiin xamaalinta berbero ee loogu talo ayaa waxay ka dhisteen buulal yar yar oo bacaaba ka dhisteen okay qolkayga yaraaba iska ayaan hoosta ka gala anigoo sidaan ahaa aanan garanayn 3 casho ayaan meeshii jiifaan cuntiyo baad midnaba u kicin haya waxaa dhacday maalinkii dambe waana xanuunsanayay dee waxaan la odhan karaa dee xanuunkaas ma jacayl baa odhan karaa dadka qaar baa odhan doona jacayl baa loo xanuunsadaa way isaga ugu xanuun xunay haa waxaa dhacday 3 casho ayaan xanuunsanayay qofku wuxuu igu dhahaa xagaa lagaa hayaa wallahi meel laga hayayna garan maayo odhan waan xanuunsanayay maalinkii ka mid ah xamaalintuna iskuma dhexday moogta qof iyo kuu keenaya arki maysa ma jirto wala qablo la oranay mid kuu keenin keenaya arki maysa waxaan kii yaraa halkaas ku jira reehbel oo si ka dhaafaya allah ku caafiyo kuugu fiican way haduu ku dhaho allah ku caafiyo way haya baan afraadii anigoo 3 casho wallahi baan ka soo kacay anigoo maca socodka ugu dirqiyahay baan soo tuko lacag ma hayso moolkayga waa 00 ah waa berbero cid wax ku dhigaysa ma jirto waa qadi lacagta waa waxa dhacday anna dhaqan baa leeyahay qof wax ku dhahdo aan meherada wax kasta cunayo lacagta igu lahayo dhaqanka midii waay waxa dhacday wax shaqaa doono mana shaqay kariyo moogta waa waa iska soo noqdo meherad baan soo maray marka aanan weliga arag meherada ku uri caadiyeero masaxada marka biyo ku soo shubto marka xasib waxa ku dan xasib inuu caagadeena masaxada hadda sokor yar ku shubatid energy way ku soo celinaysaa ha waad ku shaqo tagaysaa waay mid meherada ku soo maraysa ku ariya assalaamu alaykum alaykum salaam waa sokor yar sokor igu shub nin halkan oo xanuunsanaya baan u gehinayaa anaga taxanuunku muxuu ahaa anu mufruusiyoodna mood allah waxa dhacday waa iskaga tagay ka bacdi markaan ka tagay meeshaydii yareed baa iskaga noqday adoo axna aniga waxna cunin sonkortiina waayay sonkortiina waayo biyahaygii madoobaasita haya bas aniga waxaaba waxay iga xanuun badan saan jawaab u heli lahaa ama inantaa meel aan uga xidhiidhi lahaa xidhiidhkeeda raadinaysa aanu raadinaya ama aanu heli lahaa waay ayaa wax walba iga xanuun badan waxaan oo dhan danka maleedha bukaanka haa waxaan oo dhan taasaa igala weyn waay waxaa dhacday anigoo bartii jooga ayaan cid wacday adigu lacaga markaa waxaan wax ku cunaa lay soo diray ka bacdi markaa cunaa casirka iska shaqo tagi waay waxaan si magaalada intaad noolkaaga ka waruursatid aad ayaan ka shaqaysatid aad ka baxdid waay waan ka baxay magaaladii hay markaa 2 habeen ayaan sii dhaxay meesha waa meel hawdkaas tuuladu waay tuulada markii xaas baan tagay inantii waxaan sidhi maadaama intaasoo dhib isku soo marteen ha ilo iyo ilo aad iska haysataan sax aad hawshan soo gabagabaysaan sax hawshuna iyada dacalkeeda waa ka diyaar sax anigana waxba igama yaalin waxaa dhacday inantii bartii ayaan ku wada hadalnay sidii ayaan u wada wadnay odayga markuu arkay magaaladina oo garanaya ninkii inantiisi ka xaystee buu feejignaan gaar sii galay marka leeyahay waa soo haa wiil siqaadkii waa soo noqday tuuladina way yaras tuuladina waa garanaysaa 4 milood garanaysa oo kiina hebel ka xaysta lagu leeyahay waar heb caan baad ka tahay ma waa barnaamij hebel oo ka caan Ha. tuulada caan baad ka tahay Waay. waa kiina hebel ka xaysta markii waa lagu garanaya oo hebel baa lagu leeyahay waar waxaa dhacday inantii sidii ayaan teleefonka uga wada hadlaynay habeenkii dambe ayaan miyigii baan anigu aadaa
aan miyiga kala soo hadlaa waay maalinkii dambe ayaan soo goostay inaan inantii aan iska haysano waay kabacdi magaaladii ayaan imi magaaladii habeenkii intaan joogay maalintii ayaan casarkiisa aragnay meel baan ku ballanay miyiga waxaa jirta wax la odhan jiray ha layska sii hayo qamiya wax la odhan jiray oo alaab inanta u keenayso haye bas anugu kamaan codsan iyadaad igu tii ilayo loo ku imanayaa ha alaabtaad iga haysid iyo sidkaana ha waxaad u arkaysaa inaan kuugu imanaya aad iga sii haynaysaa alaab iyadoo ay leedahay alaab iyadoo ayay kuu leedahay dhiibtay ayay ii dhiibtay waay qamiga waxaa jira ninku wuxuu odhan jiray ku aamini maayo maxaa kugu sii aamina waxaa lahaa qamigii keen okay marka waxay u keenaysaa dharkeeda dharka ugu jeceshahay ay kuwanasa sii hay ayaanase sii hay sidii aamin haa waay dharkii bay ii keentay kabacdi geedkiisaan ugu jirnay aan marba saa usoo eegeynay dhaxantii ugu xunaa ay dhacayso waana jiilaa dhaxantii ugu xunaa dhacayso aan labadii anageena ka kale geedka u fadhinay ba waxba noo iman waaye alaabtina wada haysa alaabtina waa hayna waay waa berigii markay hadaan inaan waxba kuu soo socon aan soqadhaan maqalaba iyadii moodayno ayaanu meeshii ka tagnay hay alaabtina anagoo hayno hay meel aanu dhigno garan mayno hay xaafadaha geen kari mayno waay waxaa dhacday waan ka baxnay magaaladii waan iska tagnay miyigii baanu aadnay hay inantiisa waa la ogaadayo odaygii baa ogaaday habeenkii gebigeeda tulugta silsilad kaga xidhay ha ayuu bartaasaad igu xidhnaanaysaa inay baxayso looga dadna inantii waa la xidhay inantii waa la xidhay waay kabacdi waxaa dhacday anigu waan iska tagnay inantii ayaamo kabacdi miyiga aan ku maqnaa intii labirkeeda ugu xidhnaa maalmaha ka mid ah aan magaaladiina tegayno dee aan ka calaamadsannahay ayaa waxaa dhacday 5 casho markaan ka maqnaa baan magaaladii soo galay waxaan tidhi ilow iyo ilow raadi inantii waa intii nintii aad raadisid waay taleefankeedii waa xidhan yahay inaanu magaalada markaa meherad ku haysataan dee walaaltinimo naga dhexayso ayaan ku odhan tahay ugu yeedh